Dhallinyaradeenna ma ahan kuwo ku kalsoon kuna faano jecelna islaamka ma ahan kuwo ku kalsoon qur-aanka mana ahan kuwo ku kalsoon in rasuulka sallallahu calayhi wasallam yahay tusaalaha ugu fiican ee lagu daydo. Qofna uma qalmo in la jeclaado isaga oo kale, qofna uma qalmo in la raaco isaga oo kale, qofna uma qalmo. Sideed wax uga qaban kartaa mashaakilka ku yimaada iimaanka? Way fududahay in laga hadlo mushkilo, wayna adag tahay in laga hadlo xal, way adag tahay. Aniga afeefteeda waxay tahay inaan sheeganin jawaabo sida jawaab dhameystiran. Waxaan hayaa fikrado, waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaago fikradahaas. Qaybta koowaad ee xalka ayaa ah inaan abuurno dhaqan ku xeeran saaxiibtinimo xoogan. Aqoonsiyada nafteeda waxay ku wareeganaysaa qofka aad la joogtid, qofka aad inta badan la qaadato waqtiga, cid aad isgaranaysaan. Marka aad waqtiga badankiis ku qaadato computer, waxaad bilaabaysaa inaad qaadato qaar ka mid ah tayooyinka waxaad akhrinayso, waxaad fiirsanayso, waxay bilaabaysaa inay weerarto fikradahaaga. Nooca dadka ah ee aad waqtiga la qaadato, hadday baranayaan islaamka waqtigoo idil, waxaad raboonaysaa inaad barato islaamka. Hadday cayaarayaan kubadda koleyga ah waqtigoo idil, waxaad caado ka yeelan doontaa cayaaridda kubadda koleyga. Sidoo kale, haddii ay daawanayaan filimada mar walba, sidoo kale waxaad doonaysaa inaad daawato filimada. Deegaankaagu saameyn ayuu kugu leeyahay. Dadka aad adiga isku hareerayso saameyn ayay kugu leeyihiin. Bulshada muslimka ah, ayadoo laga bilaabayo qoyska muslimka ah kadibna usii gudbaya bulshada muslimka ah, waxay u baahan tahay in si dhab ah loo sameeyo olole kaas oo lagu hubinayo carruurteena yaryar inay ku jiraan la joogitaan kudayasho fiican leh ee carruurta ka waaweyn, sida aboowo ka weyn ama abaayo ka weyn oo kale. Sida markay jiraan gabdhaheena 12, 13, 14 marka ay soo korayaan oo ay soo baxayaan. Qaar ka mid ah gabdhaha muslimka ah ee hormuudka ah ee bulshada ee jira 17, 18, 19 waxay aadayaan jaamacad, waxay ku dhagan yihiin diintooda, waxay baranayaan diintooda. Gabdhahaas waa kuwa lagu daydo ayaga oo aan ogeyn xitaa. Gabdhaheena yaryarna waxay u baahan yihiin inay waqti la qaataan gabdhahaas waaweyn. Aad bay muhiim u tahay inay haystaan qof ay kor u fiiriyaan, kuwaas oo xagga diintooda ku adag, iyo inay hamiyaan ayaga oo kale inay noqdaan. Taasi aad bay muhiim u tahay. Sidoo kale waxaa ka mid ah wiilasha yaraantooda ma ahan sida waataqana waxaan sameeyay ciyaalka yaryar ee isla joogaan kaligood, kuwa weyn kaligood isla joogaan. ayadana si hadii loo fiiriyo ma shaqeyn karto. waxaa loo baahan yahay in la helo nooc kamid ah hagitaan heerka bulsho ah, sidaasna ay carruurta yaryar waqti la qaataan. qaar kamid ah kuwa weyn, gaar ahaan kuwa diintooda kusii dheereeya, waana haysanaa kuwaas maasha Allah. inkastoo aanan haysan in badan oo kuwaas ah, kuwa nagu filan ayaa haysanaa. waxaan haysanaa dhalinyaro oo nagu filan oo ku dheereeya diintooda gudaheeda. waxay dhab ahaantii doonayaan inay wax badan ka bartaan, waxayna yihiin kuwa lagu deesto wanaagsan. waad ogtahay, waxay haystaan dhalinyarnimo, waxay haystaan tamar, waxay haystaan caafimaad, waxay haystaan muuqaal wanaagsan. waxay u raaci karaan namaro badan oo wadooyinka nolosha gudaheeda, laakiin waxay doorteen in naftooda isku dhiibaan islaamka. taas ayaa nafteeda arrin aad weyn. taas ayaa ka dhigaysa dad lagu deesto ha ahaato inaysan weligood qabsanin mikrofon ama aysan ka dhex hadlin bulsho macno ma lahan. weli waxay yihiin kuwa lagu deesto. waxaan nagala baahan inaan dhigno booskaas. taasi laba wax ayay qabataa. kow, waxay siisaa carruurta yaryar qof ay kor u fiiriyaan. laba, waxay kaloo saartaa kuwa weyn dareen mas'uuliyad. waxay ka dhigaysaa inay gartaan kuwa kale indhaha ku hayaan. waxay ka dhigaysaa kuwa ka jaawi kara heerar sare, sababtoo ah waxay astaanta guud u dejiyaan kuwa kale. waxay ayagana siisaa dareen mas'uuliyad ah. marka la talinta noocaas ah oo kale ayaa loo baahan inay bilaabato marka qoysyada bilaabaan taas sameynteeda iyo adeegsiga bulshada oo ah meel ay ka dhici karto la talintaas.